qofkan aad xulanayso oo aad doonayso inaad la noolaato waa qofka noloshaada oo dhan aad doonayso inuu kugu xidhnaado waa qofka aad doonayso inuu ubad kuu dhalo ama aa ubad u dhasho waa qofka aad doonayso noloshaada inta ka dhiman inaad wada noolaataan oo waxaan geeri ahayn aanay idin kala kacayn haddaad ujeedka noocaasa u socoto ama ujeedka noocaasa aad u ordayso qodobadan halka ku qoran waa kuu muhiim haddaan idin hor taaganahay oo aan leeyahay faham jacayl baan idinka sheekaynaya macnaheedu ma aha inaan idinka aqoon badanahay macnaheedu ma aha isaga laftiisa inaan idinkaga khibrad badanahay laakiin waxa weeyaan waxaan ku dhiiraday oo aan u dhabar adayga waqti ku bixiyey inta aan garanayo sidaan idinla wadaagi lahaa ama garo ama ha garan adigu dhibaatooyinka ina haysta ee jacayladeena u guulaysan laayihiin oo qof kasta maalin kasta aynu aragno qof leh jacayl baa igu dhacay kuma guulaysan sababta ma taqaaneen sababta waxa weeyaan waxaad wax jeclaan kartaa markay kuu qorshaysantahay waqtigaad guulaysanayso adigoo aan kuu qorshaysnayn inaad guursato aad isleedahay tusaale ahaan aadan ka fikirin inaad guursato 2020 iyo 2019 iyo 2018 midna inaad guursato iyadoo aan kuu qorshaysan haddaad wax jeclaato waa dhibaato markaaga hore ama qof wax jeclaada ahow ama qof la jecel yahay ahow laakiin kuu qorshaysnaato waqtigaaga. Assalaamu calaykum magacaygu waa Ubax Maxamed Aadan maanta waxaan ka soo qayb galay barnaamij aad u qiimo badan oo looga hadlayay arrimaha jacaylka oo qabanaya abwaankayga qaaliga Maxamed Saalax Maare aan aad u xiiseeyo maxaa la yiraahdaa buugaagtiisa iyo qoraalkiisa iyo intuu bulshada ku dhex yahay aan aad ugu taageero barnaamijka uu maanta wax badan oo ka hadlayay sida qoyska xiriirka markuu bilowga yahay iyo sida maxaa la dhihi jiray jacaylku uu ku burburi karo run ahaantii ani Ubax ahaan wax aad igu muhiim ah nolol ahaanteyda aan ka faa'iiday hataa qof uu ku naco ama uu ku xumeeyo inaan laga maarmi karin anu ma aaminsana qodobka noocaas adduunka wax kasta ka maarmi kartaa tusaale aan ku soo qaadanaya waalidkaas qofka ku dhalay ma tusaale ahaan waalidka kala saar hooyadaas qofka adiga ku dhalay ma intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool Allah inoo daayo haddii hooyada ay dhimato laba maalmood baad ooyeysaa marka saddexaad soo kuma khasbanid inaad ka samirto soo kuma khasban qofaan hooyada ay aabaha dhalin sideed ugu khasbanaan weyd inaad ka samirto marka maaha dagaal maaha kama soo horjeedo laakiin waxaan kuu sheegayaa qofku markuu ku dhaho waa ku jecelahay macnaheedu kaama maarmo weeyaan qofkaasi muu waayin qofuu jeclaado qofkaasi muu waayin qofuu guursado qofkaasi muu waayin qof kale xidhiidh la sameeyo sax adduunka intaasoo kun oo milyan oo qof baa ku nool oo rag iyo dumar isugu jira bilyan macnaha guud aad jacayl u samaynaysaa waxa weeyaan ani gabadha aan jecelahay waxaan rabaa inaan kaga maarmo gabdhaha adduunka saaran oo dhan sababto dareen baan leeyahay sooma waxbaan dareemayaa waxbaan u baahanahay lamaanaan u baahanahay sooma waxaan rabaa markaa inaan gabadh jeclaanayo anigu oo aan si dhaba weliba u jeclaanayo inaan kaga maarmo gabdhaha kale oo dhan oo iyadu ii buuxiso adduunka gabdhaha saaran waxay ii buuxin lahaayeen jacaylkan gebigiisuba awoodiisa ugu weyn waa xiise dadka qaar xiise markaa tiraado dib bay ugu guranayaan waxay leeyihin may jacayl baa la yidhaahdaa jacaylku waa xiise waa qof aad xiiseynayso laakiin aad adigu aamintay inaadan qofkan ka maarmi karin aad adigu aamintay inuu qofkaasi noloshaada qayb ka mid u yahay wax kastoo aad aamintaana noloshaada toos bay ugu dhacdhacaan الرحمن الرحيم ugu horeyn magacayga Bashiir Axmed Yuusuf barnaamijkan waxaan ka faa'iiday horta lama soo koobi karo muhiimadda ugu horeysay abaan ku noo qeexay ereyga la yiraahdo waa ku jecelahay waxaan u maleynayaa sida uu qeexay inay ahayd sida ugu sarreeyay loo qeexi lahaa midda yani ugu sii badan oo aan ka faa'iiday waxay ahayd jacaylka lagu sheegayo mira dhalkiisa ugu badan amartan aad hanato waxa weeyo qofka aad jeceshahay ama qofka xiriirka la wadaagayso inaad raali geliso muhiimadda ugu badan oo ka faa'iiday raali gelinta inay tahay meesha ugu sarreyso qofka aad jeceshihiin aad ku hanan karto sidoo kale inaad hadiyado u soo iibiso sidoo kale inaad u duceyso sidoo kale inaad ku faraxsantahay inaad xilli walba u sheegto
lama soo koobi karo yani markaan meesha soo gelinay markaan hadda sii bixinay isma lahayn qalbiganaga iyo muuqaalkana anagu wada faraxsan qaar kana jacayl uu ku abuurmay intaan meesha fadhinay maasha Allah u fur laabtaada jacayl kalsooni iyo karaamo ku dheehan tahay la qabso oo u samir nolosha inteeda culayska badan si aad u gaadho inteeda raaxada badan iyo inteeda raaxada iyo raxmaddu ay ku lamaan tahay dareen oo damqo qofka aad doonaysid dareen oo la damqo qofka aad doonaysid inaad nolosha la wadaagtid u fur ilkahaaga oo u dhoolla caddee adiga oo qalbigaaga si xad dhaaf ugu qoslaya ka farxi oo dareensii inuu yahay qofka noloshaada ugu qaalisan isla markaana aad doonaysid inaad agtiisa ku noolaato haddii nasiibka iyo rabitaankaagu ay kulmaan ilaahayna uu dhabeeyo ha raadin qof wanaagsan oo nolosha kula qaybsada adigu noqo qof wanaagsan oo nolosha uhur waqtigaaga qofka aad jeceshahay oo baro waxa uu necab yahay iyo waxa uu jecel yahay si aanay hadhow caqabad kuugu noqon hadda maanta intaad bannaanka kala taagan tihiin waa inaad barataan qofka muxuu necab yahay muxuu jecel yahay muxuu ka helaa muxuu dhibsan karaa kulli waa inaad dhibsataa waa inaad ogaataa dhibaatooyinkiina haystay ka mid tahay qofkii aan waxaasoo dhan sii ogeyn markuu noloshii dhex galo haddana hadhow wuu odhanayaa oo miyaad qayli jirtay haa marmar baan iskaga tuurtaa deetana dhowr cisho kadib gabadhii waa dhibsanaysaa الرحمن الرحيم مقعيقة فوز أحمد محمود إن فوز جلسي إن ما شاء الله برامج قروح بدن ومركو رئيس مقدشة أكو أركو برامج جور لوجا هاد لايو إن واحد بدن أنا كفاية بقول كي وبقول إن مقالة مقدشة دنير بدن أكسو قيب لشاني عمل واحد بدن كفاية إن صو مركا جور هذا كسو بحديدا أنت إماتت وقتي أصابي حس وقتي قاس وحواي إن أكو بحسيت إن برامج كان أو بحسي أدوتني وإنا كفاية no boqolkii boqol tankii aan leeyahay abaan maar idin dhex galo adiga oo si dareen lagu oranaya waan khaldamay iga raalahow ogow jacaylka dhabta ah waa kan labada qof Israa'iil geliyaan waqtiyada adag ee noloshooda soo mara waqti kasta oo adag oo noloshiina soo mara haddii aad Israa'iil gelisaan waxa hubaala inuu jacaylkiina si guuleysan doono Nabi sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlay ragga muxuu ku yiri qofkii raba inuu guursado xaas waa inuu ku xushaa afar shay afartaas maxay kala yihiin gabadha quruxdeeda maalkeeda iyo dadka ay ka dhalatay iyo familkeeda iyo muxuu yiri diinteeda aniga iskiin bar horta waxaan ahay arday ka soo baxay dugsiga jacaylka Abuu Marre waxaa laga yaabaa in halkan dadka fadhiya ay yihiin dadka ugu baahida badnaa ee arrimaha aan sheegno dhan soo jiiray Soomaalida dhaqankeeda ka soo dhex baxay ahaa jacayl didista waxyaabo la midka ah lacagtii soo baxshay waqtigii soo horay halkan soo fadhiistay haddana ka waran haddii halkan markaa ka tigta aad waxba ka faa'iidin oo birita dhagaxaaga tahay bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacaygu waa Caawiye waxaan nasiib u yeeshay maanta inaan ka qayb galo madashan aadka u quruxda badan oo uu casharo aad u cilmi iyo manfac badan uu nagu siinayay Abwaan Saalax Marre waxaan halkan laga faa'iiday su'aalo badan oo falsafada jacaylka la xiriira oo ah waa maxay jacayl kelmadda jacayl waa ku jeclahay maxay la macno tahay sidee jacaylkaaga u ilaashan kartaa jacayl guuleystay jacayl guul daraystay jacaylka sidee loo metelaa kalgacaylku waa maxay xiisaha iyo jacaylku maxay ku kala duwan yihiin darajooyinka jacaylku maxay yihiin runtii waxaan isleeyahay waa cashar haddii af Soomaali lagu koobo la oran karo falsafadii jacaylka iyo abwaanku na baray waxaan ka faa'iiday inaan hadda guursan karo anoo hore wali guursan